السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما أنتوا سلامي يا ملك استوجوكتان دا وضيال سو دوادا warbixin baan idin siin doonaa insha Allah xaaladihii ugu dambeeyay warar badan oo ka hadli doona qodobo badan oo ka hadli doona oo ay kamid tahay arinta isaaqa soo gurmaday isaaq garana waa ishaynaa kada buursi isna soo gurmaday isna waa haynaa hadii la kuurayo dagaalka ku soo biiray waxa kale oo aan ka warbixin doonaa oo aan ka hadli doonaa saraakiisha ku dhimatay dagaalkii jamaacada argagixisada jimcihii la soo dhaafay dhacay taana waa ka hadli doona saraakiil badan oo la qarinayay geeridooda la xaqiijiyay arinta Cabdimadoobe isagana waa ka hadli doona oo isaaqo ay aad u buubuuninayaan ugu horeyn horta marka koowaad Cabdimadoobe baan arkay iyagoo meelaha marinaya General Cabdimadoobe oo sarkaalka loogu hadlahay inta badan yahay cabsi Cabdimadoobe aan dilay Cabdimadoobe waa halkii la oran jiray karaamay sideen habaan lagu kariwaa Cabdimadoobe waxa hadii la kuri waa geesi weeye hawlgalkiisii hawshiisii iyo halgankiiba kuri ku jira waa fiican yahay xariiq ma gaarin meelaha dagaal ku socday ma jooginba marka wararka ciyaalka lagu sixiisaaqo waa heerka aan la yaabanahay caaw hadii aniga soo cabas madari bihi isaaqo waa shay ma idin sheegay hadaan 2 weeks aan hawada ka maqnaado waxa leeyahay anaga ka dambeeyay hawada ka maqnaado hada fiil anaga ka dambeeyay ku leeyahay war Cabdimadoobe igfiri rago mid ogaada rago haduu dagaalamayo de meesha dagaalka in dhibashada oo taga waxa dhaawac oo taga ilaa meesha waxa way biyo la iswaraabi maayeen rag waa dagaal rag waa dirirayaan marka laakiin wararka propaganda meesha kuma jirto in aan dhiman oo aan dagaal ku jirin oo aan dhiman in meelaha la wareegtan Cabdimadoobe waa dhintay Cabdimadoobe warkaasi barita markuu soo hadlo oo TV-ga hadii la kuurayahay uu ka hadlo barito maxaa dadkii beenta lagu sheekeeyay riwaayadaha lagu sheekeeyay maxay qaadanayaan waa dhaawac buu ka soo kacay marka ma dhaawac ku soo kacay waraasa dadka beenta ka daayay riwaayada iyo walaaho Cabdimadoobe alxamdulillah rabbil alamin haliyay weeye mid ogaadana haliyeeyada ma qarino sida idinku dhaqanka xabashada taqaanaana meedka iyo dhaawac ay waa qarsataan warninkii shalay ku halgamayay adiga waxa way ku dirirayay marka uu dirirayna sabab ugu faantid marka uu dhintana sabab u qarisid meesha ma taal annaga haliyada asqaran ma u sameeyna marka warkaas waa iska propaganda waxa kama jiraan oo qodobkaas qodobka kale nin Cabdi Koodhe la yiraahdo sarkaal sara ayaa ku dhintay dagaalka waa nin kale u jeedaan ninkaas waa la xaqiijiyay kaliya ma aha ilaa 8 sarkaal kale ayaa la dhintay baa la leeyahay laakiin isaga magaciisa waa la carabaabay oo muuqaalkan ayuu ku sheegay in si arag ila dhageysto waa kana ila joogay awal baa ila joogay arab baa ila joogay ayuu baa ila joogay qaali oo ayuu oo iga dhintay ilaahay naxariistiisa jannaha ka waraabin saaxiibka Cabdi Koodhe intaas ku joojinaya waa dhageysateen ninkaas waa dhintay rag lagu cibaadaystay ayuu kamid ahaa kullu waa isaaq weeye isaaq meel loo ma dhaafsana cidu yahay isaaq waxba ma garanay waa inkaas waa idoor weeye waan u hambalyeynaya ciidamada SSC talaabada wanaagsan ay ka qaadeen maleeshiyadka argagixisada sare waayo intaas marka ka imaado horta gurmad badan baa isaga yimid meel walba waa isaga yimid xagga SSC khaatimo waxa weeye hal naaskeed cid gaadha oo hadhay ma jirto militariga ayay garab weyn siiyeen waa la sii diyaar garoobay xagga kale hadii la kuurayahay jamaacada argagixisada sare waa isu habar wacatay aswaata dagaal baa la cilaamiyay dagaal bay qaateen sida kooxda kale SSC khaatumeeyada dagaalka waa qaatay si toos ah loo ayaa la kuuray labada dhinac dagaalka waa aqbaleen cilaad baa naas nuuga leh hore baan u sheegnay markay nabadda ku baaqayeen nabadda mandaleeska ma ku baaqayeen gabadhii raxmo yar maxay tiri nabadda cilaada naas u sameeyna naas soo yiraahdo nabad baa naas nuuga leh kalmadaasi waxa way waa kuwa loo bay noogu xoran tahay cilaad baanu naas nuuga leh aan leenahay si toos midna way idin sheegay saaqo dadku way id barteen Soomaali way id baratay faqdan waxba gurmaday sawir igu sawirtan halay Soomaali way id baratay inta dadka nabad wax ku yeeshaana cilaad wax way dadka wax ku yeeshaan dagaalkii weynaa soo socda kala reebta dhici doonta banaan baan isugu baxaynaa waa kala xaajo qadanana ilaa iyo erigaabo ilaa iyo qorlugud saf balaaran ninkii Roomba reerka u hari doona ama idinka reerka u hari doona dalka qabsan doona ama annaga waxa uu yahay dalka dalka qabsan doona midna idin sheegay shuruud condition ka wadana waxa way marka dagaalku dhamaado
oo labada nin midkii roon reerka u haro waa inuu yahay nin waliba marka dagaalkaasi uu dhamaado meesha uu taagan yahay isaga kale si toos haddii aan ku istaago sheekh ama burco aniga iskale waraganimo waa shuruud wanaagsan wey waayo maalin walba waxa weeye inaynu isu farbaxsano oo dadka been u sheegtaan warana waxaanu ka jeclaa in wadeena mid uu reerka u haro marka waxa weeye Soomaaliya ay marxateen waxa weeye aynu gashanana waynu kala baxaynaa anagoo isasi khaatuma iyo iduko jabahada argagaxsada sanam isaaq iyo huwantooda intaasna waa inta waayo dadkii been walaha dadka ka dharjiseen riwaayadda ka dharjiseen awoodina tabartina ramaanaan iyo tusno xalay waxa dhageystay Suldaan Guuleed oo aan Axmed Faarax oo habar jeclaa oo ka hadlayay shirkii beesha isaaq qodobka aan ramaynan ka jawaab wax weeye wuxuu yiri daadman lagu wareeyay oo midda kale cidina dishawa garamayno markaan dhahno waan la laayay wariyana laayay markaan dhulbaanta ku dhahan anoo idmaan laayna military ay sameeyay aan wax ka dhigan tahay in la laysay ma garanaan adduunku harka labadiisa galin yahay waxay ku cadeynaysaa shalay markii Suldaan Guuleed shalay markii dagaalku la socon ka socday ee isaaq oo duulaan ay dal iyo deegaan ay lahayn ku duuleen magaalo ay 9 bilood wax weyn maraafiic dhacayeen isaaq gurmadka waxa weyn laba dhigayay oo garaadadeedu waxaan war inta aan agta la marin oo hafqiyaamadeedu ku dhaw ciidankina si nabad oo la bax isaaq waa aamusnaa masaajidada ku jireen ilaa sheekhyadooda ilaa culimadooda way aamusnaayeen markii la jibiyay ee hanta haruba laga dhigay markaasi wada miirsadeen Suldaan Guuleed markaa ma hadlin mud buu ku jiray niman garxash la yiraahdo markii dambe guddi baasta la yiraahdo loo bixiyay iyagu dhaxooda u bixiyeen baa hadlay waxay dhaheen dagaalka kuma jirno nimankaasina jacayl iyo islaamnimo iyo waxa weeye nabad ay ka hadleen ma ahayn Muuse iyo habar jecel ay saxayeen oo colaad ba Muuse habar jecel waxa weeye deel ku xumays bay kelmadda u lahaayeen ma garad isaga laakiin isku dhamaa dagaalka waa ku raacsanaa waa isku raac maal culimadooda waxa weeye kulli culimo badan bay leeyihiin ma ka hadleen oo ma yeeway maanta markaa gurigooda ay timid markii magaalooyinkooda laga qaxay ay adduunku harka labadiisa galin way shalay meel kale joogtay baashu maanta si guriga ay joogtaa hadda moogta balaayadu marbay daba qabasho lahayd waa markii lagu digay ee lagu lahaa ciidanka kala bax ee lagu digay marka reerkaaga carruurtaada la bixi lahayd oo askartaada la bixi lahayd maanta qorlugud kama qaxdeen oo Baafarson meesha noqoteen oo oogmaada banayseen oo caynaba kama qaxdeen oo ceelafil maad banayseen oo maanta tolaa ay maad tiraadeen haddii aad runtii xaqiiqada wiilashaada aad qaban lahayd gacmaha taas ma dhacdo laakiin ogow shalay meel kale ku maqneen maanta si guriga ay joogtaa midna ku sheegay arinta leedahay cid disha lama garanayo annagu dadka kuma dilno fulinimo madaxana uma duwano annagu dhul bahantaa baan wax garaacnaa annagu dhul bahantaa baan wax ka xaja qaadanaa annagu dhul bahantaa baan wax soo afsanaa annagu dhul bahantaa baan isaga soo jahnaa annagu dhul bahantaa baan hadii la ku reeyay Soomaalidu waxa la reerka kaliya waa dhul bahanta liminta loo bay ugu xiranta Soomaalidu waxa magaalo u dhalan deegaan aan u dhalan deegaan ka fog waxa intay wax ku dilaan waxa weeye ku dhiiran kara inay wax ku laayaan ka yimaadaan oo ay waxa weeye geesinimada dhul bahanta leh Soomaalida waa taqaana marka niman qarsoon oo madax dubta milin laakiin taa bedelkeed adigu 15 sanadood xukunka jabhada argagaxada sanam laas aan madax hayad hal door ku duwanaysa fulayniyo kama aydan hadlin war waxa weeye maantana adiga ka cabanaya marka waxaan leeyahay shalay meel kale joogtay maanta aday ku joogto wali saanagu halkii aan doonayna wali may gaarin laakiin markay gaadho baynu qaawanaanta isku waraysan doonaa intaas aan sagana leeyahay oo kan hadlay leh buu hodan qabsanana waxa weeye bulaacad kasta hadii hadasho ay tiraado buu hodan qabsanaya waa dhibaatada leedahay buu hodan Soomaaliya lagu qabsado buu hodan wiilal inda gudgududan oo ka tirsan militariga daraawishta SSC khaatimo baa buu hodan jooga horta intaan buu hodan la gaarin qorrigoodana ka wada hadallo meeshan caawa ka wada hadlayno qorrigood weey oo uhudaadii weey qorrigood weey meeshan ka wada hadlayna ma buu hodan not buu hodan qorrigood inta soo jiraan masaafada adiga iga yaqaan oo garanaysa taasna waa taa reerkan xafaayadaha wata ee xafaayadaha xiran ee afka kaga soo hadhay waa nasiib darro weey waxa arkay ayuub hadlayo waa gurmanayna oo dagaalka dhulbaanta la qaaday waa adduun abihi wasaway meesha ayuub leeyahay dagaal baan galaya oo dhulbaanta colaad la qaatay waa adduun abihi wasaway waa gabayga sayidka maxaa ku jirtay wuxuu yiri waa soo hadda oo hadii la ku reeyay yemi qadaawin laga hayo maanta waxa weey ayuub waxa lagu yiri ayuub ilaahay baan ku dhaartay gawaarida xataa waxa waa laga dajiyay marka dagaal dhaco gabaygeedu waa konto qof baali konto qof weey konto ka qof
hadda inta aabahay dhalay inta ka farcantay waxa way ba ka badan ayuu kala sheegay marka taasna waa un saxaafad raadis iyo adduunka iyo hal la barto shout out markii dagaalku socday bay dhowr nin ku dhex darsadeen gooja cadde waa la qabtay mid kamid ah askarta qalasyada baa ku war qolama tahay suuraani magacaaga kuma weydiinay qoladaada ii sheeg waxa weeye anagu waxa yar ka guraan gufka inay umad jiran yihiin oo ma naqaano marka waxaan leenahay waa iska hadal iyo dhaqaqooyin arkay gurmad gadabuursi baa dagaal ku soo biiray oo 300 askariya oo guriga cawl laga soo qaaday oo gasamaroona arintan la yaabana way isaga way saxayna garta oo dhul iyo deegaan iyo siyaasadda isku hayna wiilka gadabuursiyo ee caloosha shaqaysto waan ogahay taradee reerkaas gadabuursiyo kuma soo bixin laakiin waa caloosha shaqayst maxaa adiga deegaanka ka galay maxaa ku keenay waxa way dhul bahanta iyo reersi Khaatumo iyo dooris haya maxaa adiga waxa way badaha u galay maxaa badan ku soo galay waxaan leeyahay reer ciidanka isii Khaatumo leeyahay dilka uga badiyay isaaqa kale isaaqa inta sidaad isaaqa u dilisaan samaroonka uga badiyay oo dilka uga badiyay oo xanuunka waxa way uga badiyay oo dhirbaxada uga badiyay oo hasiideena dhirbaxa kulul weena ku fataan waayo isaaqa way sahnaayo waliga weyn isku hayn doonaa waxba isku hayna laakiin kan aanan waxba isku hayn ee awooya aanan waxa weeye hadii la ku oolahayga iyo geerigu aysan isgaarin hada sabab uu dagaal u soo galo isaaq iyo dhul bahanta meesha ma taalo waxa la military amar baad qabtaan dilka uga badiya isaaqa inta kale waxa weeye dhirbaxada uga badiya waxa weeye ka xaaja qaata taasina ciidankan leeyahay ninkii sheegay muxuu yiri waxa lagu midigta u dhacbaalay markaas uu bidixda baan belo ku ogeynba waranaga isaaq waa noo isaaq waxa weeye wixii soo raacaya ee waxa weeye kaalmeynaya gadabuursi kow ka yihiin caloosha shaqaystayaashooda waa soo dhaweynaa horaan u sheegay waynu kala baxaynaa shuruuduna waxa weeye nin walba meeshuu haro marka dagaal ku dhamaado nin walba meeshuu taagan yahay isaas kala si toos kordhiishigeena in dhax yeela waa taas weeye waynu kala xaqa qaadanaa waliga ceeb kaga tiin goob arleysidi waliga hadii la guurayahay ceeb kaga tiin waayo dhul bahante yareersi Khaatumo in Afrikaan wada gogostaan waxay timi bacda daraawish waa tuuraas qamaah turkigan u shooray nin kala shuufi hadalkiis dhul bahante iyo idoor iyo Afrikaan iyo madow in wada gogostaan waxay timi bacda daraawish wixii daraawish ka horeysay ma wada hadlan jireen dhul bahante waxa laga gogosan jireen aldaanka ma laga gogosan jireen dawladihii quwadda weynaa bay wada gogosan jireen sawaadru aakhir samano dawaa halkan yiri waa ayub iyo arab waa nabiga waa ka qof weyn dhulbaanta la dagaalamana bilay taasina waa soo dhaweynaa meeshan dhamac baa taala biyo la soo siiyo dhamac baa la isku la siinaya meesha waxa weeye reerkeygana waxa weeye hadii la kureeyay rasaasta iyo dhamacda iyo baaruuda waan ku taranaa waa ku taranaa waa baaruuda qalashadu waa ku quraacdaa ma si toos marka taasna waa taa waxa ku soo gabagabeynayaan si Khaatumo gurmadkeedu meel fiican maraya aad bay u diyaar garoobeen runtiina waa ku farxsanahay qaabka ay u diyaar garoobeen waxaan se rabaa inaan bogaadiyo maamulka iyo dawladda oo aan ku bogaadiyo qaabka ay hawsha u wajaheen waxa rabaa qof kasta oo reeraysi Khaatumo meel kasta uu joogo inuu diyaar garoobo difaaca dalkeena iyo taageerada maamulkeena taageeradii hadii la kuurayo ciidanka waxa weeye wixii hadii la kuurayo taageera qof kasta degmo ilaa magaalo waa in garab istaaga ciidanku waa inuu muuqdo weeye la diyaar garoobo qurbo joogto kaalintooda si fiican bay iyaguna u qaadanayaan ciidamada iyo military-ga runtii waa garabkooda inahay geesiyada geeshkayago wiilasha la holi waayay wiilasha cabsida wiilasha qeelana waa waray isaaq waxa way qowdooda iswada maqashiisay waxa way waan hambalyeynaya maamulka waxaan leeyahay dawladda jiheeya shacabka oo waxa way waa in islaamkina la maqlaa oo dawladda idinka deegaankan absolutely dawladda dadka idinka loo baahan yahay inaad runtii jiheysaan jiheyn baa loo baahan jiheyn insha Allah taala dagaaladu bari ama saad dambe ama saakuun maalmaha soo socota fooda la story doona insha Allah taala fooda la story doona waana xaqiiq weeye labada dhinacba urur dagaalka waa la qaatay insha Allah taala ninkii Roma reer ku hari doona annagu waxaan rabnaa reer isii Khaatumo nahay annagu riwaayada iyo waxa kama helo waxaan naqaan aan kala baxno intaasna waa intaas khayr baa idin sheegay